السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك، عيد وناكسن، كل عام وانتم بخير. ولكن عاد افتح وإذن الله مركلة سودو هذا عشر كان سدحات إن شاء الله هدي لا إله مركا وحربين هذيك كفائدة وكلية وحيابانية فائدة ذاك هلاي يرو قابك أقف كسوق فائدة سنكرا فائدة نوح كلام هذين شيء وسليدا نيو هرلوشن وجانس قف والبو جانس كاسيستن أو كفائدة سنكرا أنا different شيء أنا مدحي يقول هاي كل هذا قف والبو دريم كرا فين كرا وان دريم كرا ما أنت تدوي تون شيء ثاني تاس معناه ده على ويجي وحيران هذا marka labaad toddobiyo toban ay markaan saas oo isku bedelatinteeda ay saas soo dhalanayso waxaan maleeyahay qofka 3 bilood wada sidoo noqon kara marka I think insha Allah natiijada 3 bil waa badiina wadaagi doona marka gaaro laakiin inta ka horeysan waxaan jeclahay mar walba waxa aan ka faa'iiday iyo research-geeda iyo sidoo ii saameeyay iyo waxyaabaha ugu muhiimsan aan helay inay ahaato inay idin wadaago waxyaabo badan oo la iska daba wada way jiraan oo Soomaalida ay dhahaan baashaan saliidan waxa waaye raganimada wuxuu dhintaa iyo wax that's bullshit Soomaali wax walba wanaagsan markay arkaan negative-ka wax walba aad negative war ilaahay aqliga ku sii qofina ilaahay naga dhigay ma fahamtay kulli hada mar wayna barnaamijkaas ku sii fogaado marka laga si fiican u sheekeyn doona laakiin qofka aqliga leh oo aqliga u saliimka wax aan aqliga iyo jismiga qaadanayna jiro ma fahamtay dan brolkan aniga aan isticmaalayo miciye yaryar oo leeyahay miciye yaryar miciyahaas yaryar inay xubkan ka gudbaan hatta jirka uma gudbi karaan just waxa loogu talagalay xubkan inay fiiqaan ay maxay ka fiiqayaan duleelada xirmay inay ka fiiqmaan duleeladaas xirmay marka aad ku furtid kadibna tintaada ay kugu soo noqoto bal dambrolkan aan meeshaan mariyay iyo saliid meeshaan aan mariyay iyo raganimadeeda maxaa isku keenay wax la isku soo qaadan karo ma Turkiga dadka aad haysa saarnaa Turkiga hadii la taga baasha la iska daay soo marka waxyaabaha oo warshooqeedka la iska dhaafo qof walba raba inuu ka faa'iideystana warniyo go'aan qaado qofka madaxa iska leh waa adiga qofka bidaarta ku taalo waa adiga ma fahamtay hadana anaga waa dhahnaa khalaas way isku soo dhamaatay ma fahamtay okay baqiil inin beesadiisa isku quurin bidaar leh soo marka adiga baqiil noqo ama beesadaada ka dhimo markaas bidaartaada ay ku waaraysaa laakiin inta qof wada awoodo inay ka faa'iideysato waxay leeyahay ka faa'iideysta waxyaabaha u baahan tihiin oo anaga idin ku dhaanna soo weydiiya commentiga igu soo reeb ila soo hadal luuqa ii soo gal whatsappkayga ku qoran whatsappkayga la soo xiriir waxaan kuugu dhaano waa kuu faa'iideynaynaa ma fahamtay haddana waxaan rabaa muhiimadda aniga aan baalkaan u isticmaalay inaad ii sheega mar walba madaxayga sidoo u soo madoobaado wejigayga si fiican u arkaysiin qof walba u arkaa ma fahamtay inuu soo baxo oo caadi u soo wada baxdaa dhima inta qofka waa ujeeda tin la xiirayo soo baxoysba caadi u soo laabatay saas markaa dhaxata waa arkay ma jeedaa tin la xiirayo soo laabatay waa caadi u soo laabatay inta way soo bilaabatay waxa ku soo bilaabay xaad kadib tin isku soo bedelay madowgana arkaysidna ma jirkeyga inuu madow noqday laakiin madow waxa ka soo dhigay maxay tahay shaaribkan hadda maanta haabay sooya inta maskuega inta maxaysan ugu madoobaweys laano inta waxaysan ugu madoobaweys inta daan waay tin malaha inta tina laga xiirayo tina ka soo baxaysa maadaama tin ay soo baxayso macnaheedu waxay tahay sax waxa waay maxay dhaayeen roobka markuu soo socdo saxaaba la arkaa sama waa saxaabki saxaaba mutafid waxay dhaar ma af carabiga iigoy marka roob inuu soo socdo maxaa cadeynaya waxaa imaata waxa waaye ceeryaamo iyo caadkii waay kan tin inay soo socoto cadeyna kanna waa sidoo kale tin inay soo socoto cadeyna dadaa idhahaaya maqaarkaaga gubtay maqaarkaaga sayeeshay madaxa waa dishay no waxuma dilin aniga dambaroolka waa ku haystaa waana ku haysanaya intii madaxayga sidii loogu talagalay oo booskiisu u imaanaya maxaa yeelay waxaaba dareemaba waxa kaliya oo madaxayga maanta zaid u caawinayna waa asagay فهمت wax kalena ma aha sababtoo ay caawinoo wax kale ma aha
meelihii tinta eberta ka ahayd oo tinteeda inay biibtay xaada naqata maaragta oo dhan hadda tin madmadooba kasoo baxayso soo marka meeshii tinta madoobeed hadduu tin kasoo bixiyo meeshii tinta ka maqneedna tin unoo kasoo bixiyaa u diido cid u diida malaha waa ku wadaa waan kusii wadaa hadda shalay iyo maanta intaan ku wadaa leanno intaasaa marka hore ku keenaya laakiin hadda intaa arkay inay bannaan tahay inta xataa waa ku daray hadda mafahamte si ay si fiican salxaa iskula sinmaan marka meesha cusub qof walba marka cusub uu ku sameynaayo leanna wuu dareemaya xanuun uu dareemaya leanna qodxaa xanuunkooda uu dareemaya laakiin meesha kaloo la qabsatay wax aan ka dareemayo oo gooni zaa'id ma jirto hadda xanuun yar oo meel dheeraa dareema iyo macaan madaxayga qaybtan dambe marka hore aan bilaabaya qaybtana eber zaa'id ugu roonaan jiray hadda laakiin waxa waaye qaybtan hore aan ku roonaada hadda laannu qaybtaas si fiican u soo madoobaatay way soo qabsatay meesha khafiifkaeed oo dhan way ka baxday qaybtaana marka xaad ahayd xaadan waa hadda wax bus laga kicinayo markaad ujeedaa soo marka adi cabso ama lacagtaada iska bakiil adiga le waaye annaga waxaan ku tusaynaa natiijada 3 bilood hadduu ilaahay calaf nafta nagu gaarsiiya aanan dhimanin in dad badan ee janaalka ay wax natiijo fiican ay ka arkaan haddii ilaahay yiraahdo soo marka kuley ani janaalkayga bidaar caawiya lama dhaho bidaar caawiyana ma bixinin mafahamte laakiin maanta xoogaa tiktokayga waxyar magaca ka bedelayo bidaar kadabkeeda go-aamiya xasaasaa ka dhigay marka insha allah biidinaha janaalkayga sidiisoo magaciisu lahaana laakiin wixii aan awoodo iyo wixii aan result ka helay iyo wixii qof aan caawiyey oo asagan result ka helay waxaasoo dhan waa idiinla soo wadaaga insha allah biidnillah haddii ilaah yiraahdo marka walaalayaal waa laga faa'iidaysto ninkii wajaalis u haysto oo ka faa'iidaysan karo ha ka faa'iidaystaan intaasaan idin dhihi lahay haddana waxa waaye dambaroolka waqtigiisa waa ii dhammaaday xilligii saliiddaa la galaaya haddii ilaah yiraahdo meeshaas xataa inay qafiif noqonaysa oo malaynaa laakiin waa lagu bilaabaa hadhow gadaa laga raadi lahay madaxayga ana hadda waxaa inta badan aan salxaa si fiican ugu raadinayo mataqaan meesha tinta le kaligeed inaan sameeyo salxaa gadaal waa ka samayn karin laakiin ma rabo waxaan rabaa wixii oo dhan hal mar inay isoo wada laabtaan aniga booskooda hal mar inay isla soo wada buuxsamaan taasaan ugu muhiimsan maayna marka hore inta tinta eber ka tahay sida dadka qaar camal inaan sameeyo intaas soo celiya haddana gadaal tan soo celi hal dhagaxaaba 2 shimbir ku diri karaa hal maraan wax dhan samayn karaa maxaa 2 waqti iyo 3 waqti u kala qaadana oo iigay okay time-ka hadda waaye Alessaya masaajka xataa waxaa saan tartiib waa iska dhigi karaa laakiin ma rabi laanna waxaa rabaa si fiican madaxa inaan u gaarsiiyo si fiican ugu rugo si fiican ay u qabata baash maanta wada lama biif inaan biif ku siiyo laakiin waxaa isaga bakiila saliidda anaa iskale waxaan u rabana waa madaxeeg aniga haddii xataa bishii 2 xaba aan isticmaalo khasaare uma arka faa'iido leh uma arkaa inkastoo 2 waqti aan isticmaalo 3 waqti aan isticmaalin haddana 2 waqti waxa waaye markaan marinahay waa inaan ugu raaxayaa si fiican saliidda madaxa u gashaa maanta
markaas kadib ajaan iskala yeeli doonaa insha allah haddii ilaa yidhahda. marka balanteena waa haye maxay ahayd soo xasuusiya ninkaa laydinka rabaa reer bidaar special reer bidaar la hadlaa reer bidaar waa laga tegay bidaarta iska ilaaliya. okay berisamaadkaaga dhalinyaronimadaadii sheebkaaga quruxda badnaa soo cesho mar hadday tinta soo ceshoonto inta kalena waa soo celi kartaa laakiin mar haddaa bidaar isku daysid jirkaaga inta kalena waa nacaysaa. soo marka together inta garaac hoosan ku dar jirka kala qurxi. okay labadaba balanteena waa taas isku ognahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأولئك على التعشيق ويدين له يجلسوا على ماشان ويحي فرينا ويحي سؤاله ويحي عوبا عنتاي وانكو دامو ويسوي دين كرتا ماشان كنت ما فهم كرتامو كومنتي يقول ويحي فرينا لوخي يسوقل ويحي فرينا وساب كيف شاشة دوك قريان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.